warfaafin mise sirfaafin waa cinwaan aan qoray sidaad u sheegtay waxaa igu dhaliyey weerarkii hadda u dambeeyey ee ka dhacay hotel Makal Mukarrama dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen markii aan fiiriyey saxaafaddu sida ay uga warramaysay ama ha ahaato saxaafadda bulshada oo Facebook iyo Twitter waxyaabihii la gelinayay ama ha noqdeen waxyaabihii idaacadaha iyo website-yadu ay qorayeen markaan arkay ayay ugu dhalisay inaan wax ka qoro oon isiraahdo bal wixii khibrad aad dheer tahay ama aad si u aragtay adigu la wadaag wariyaasha iyo booliiska iyo bulshada inteeda kaleba mana ahayn markii u horreysay waxaan xasuustaa maalintii la galay maxkamadda in sidii loo reporti garaynaya aan idaacadaha ka dhegaysanayay websaytadana kala socday berigaasna waxaan qabtay tababar hal maalin ahaa ama aan dhehe aqoon isweydaarsi hal maalin ahaa oo wariyaashii ka shaqaynaya arrintaas aan ka doodnay halkan haddana markaan qormadan sameeyey oo wixii horena anoo khibraddeeda isticmaalaya haddana maalin labaad ayaan samaynay oo wariyaal badan iyo dad bulshada rayidkaan isu nimid oo aan ka doodnay wixii dhacay iyo sidii loo reporti gareeyey iyo wixii cashar laga baran karo waxyaabo badanaa warbixinta ku jira laakiin waxaan rabaa waxa ugu muhiimsanaa adigu aad u arkaysay qaladaad dhacayay oo la tabiyey oo loo baahnaynba in la tabiyo khaladaadka dhacayay wax la tabiyey iyo wax aan la tabinba waa isugu jireen wax la tabiyey waa ku jireen oo waxaa ka mid ahaa waxyaabaha la tabinayey sawirro muujinaya booliiska iyo dagaalka ay ku jireen iyo meelahay taagnaayeen iyo dadka hogaaminaya waxaasoo dhan la soo geliyey waxaa ka mid ahaa dad saqafka sare u sii cararaya oo gacnaha isqabanayo ruufka ama saqafka daarta fuulay oo sawirradooda inta la qaaday la soo geliyey websaytyada dadkaasay ugu maqaal tahay sida nin wasiirihii ugu yidhi habeen inay ku baryeen meeshaas oo subaxii dambe laga soo dejiyey dadkaas masawirradooda markii websaytyada lagu daabaco haddii habeennimadaas ay arkaan ciddii markaa iyaga inay dhibaatayso doonaysa waxay ahaan lahayd waxay u sahlan inay ka daba tagaan taasaa ka mid ahayd waxyaabaha khaladka waaweyn oo dhacay waxaa ka mid ahaa in idaacadaha qaar ay soo qoreen websaytyada qaar idaacadaha qaarna sheegeen in operationkii dhammaaday iyadoo galab dheer la joogo amaba fiidkiina qaar kala qorayay qof qol ku dhuumanaya haddii ama isagu internet uu haysta ama idaacad haysta oo arrintaa uu ogaado ama isagu uusan haysan laakiin telefoonkiisa qof ugu soo sheego qof magaalada joogo dhegaystay idaacaddaas oo yidhaaha operationka waa dhammaaday meesha ka soo baxa qofkii waa ka soo baxaya qolkiisa khatartii uu galana idaacaddaas ayaa qayb ku leh marka inahaasaa ka mid ahaa waxyaabaha la sameeyey oo idaacadaha ka baxay waxyaabahaan ka bixin laakiin dhibaatadoodu aanay ka yarayn taas ama kaba dhinacyada qaar ka badan tahayna waxaa ka mid ah in aad telefoon loogu wareeriyey si looga war doono dadkii hoteelka deganaa ama la ogaa inay fadhiistaan ama fadhiyey galabtaas aad baa loo wacayay marka qofka qol ku jira ee dhuumanaya ama meel yaroo mugdiya isku laabay ee telefoonkiisa aad u soo dirayso telefoonka ama waa shanqarayaa ama hadduusan shanqarino habeen tahay iftiinu bixinayaa ama qofkii baa damcaya inuu kula hadlo oo codkiisi la maqli karaa marka intaasoo dhan waxay tilmaami kartaa qof maaragtay meel ku dhuumanayo xabad ka dhuumanayay ama qarax ka dhuumanayay khatar weyn ayay gelin kartaa tan sii kaloo keeni karto waxay tahay hay-adihii amniga laga yaaba inay wici lahaayeen qofkaas si uu ku ogaaday nambarkiisa ku helay oo ay wici lahaayeen si ay uga soo saaraan meesha laynkii baad busy ka dhigaysaa adigii oo ma wici karaan waxa kaloo u keenaysana waxaa waye wiciddaas faraha badanood adigu wacayso ama text aad u dirayso baterigii ka dilaysaa wax kale haddaanay ku samayn qofkiina baterigii ma jaarj garaysan karo marka waxaasoo dhan waxay keenayaan inaad isweydiiso koolkan aad u dirayso qofkaas inaad adigu niyaddaada ku qanciso aad rabtaa oo tiraaho waa fiican yahay ama waa dhintay ama waa dhaawacan yahay maahane qof wax ka qabanaya ma tihin marka meel operation ka socdana qofku wax ka qabanaya keliya ayaa ku habboon inuu waco waxaa la mida wicitaanka la wacaya booliiska oo aad waqtiga looga qaadayo inay kuu jawaabaan waxa meesha ka socday dadka dhintay tiradooda iyo arrimahaas iyaduna waqtigana way ka qaadaysaa shaqadiina way ka soo jeedinaysaa ay qaban lahaayeen marka inahaasoo dhan ayaa ka mid ahaa khaldaad ka dhacay sida loo sixi kara qaarkoodna haddee tilmaan waan ka bixiyey isla maqaalkeyga arrinta dadka dhintay ama meydadka oo kale sida warbaahintu ay u tabiso ayaa ka mid ahaa
waxyaabihii aad wax ka qortay warbixintan ku jiray dad badanaa laga yaabaa inay ku dhegaysanayaan aysanna ogeyn sida waxaan loo tabinayo ama ha ahaadaan dadka bulshada wax loo tabinayo ama kuwa wax tabinaya waa runta waxaa ku jiray dad dhaawaca dad meyd ah oo lasoo bandhigay sawiradooda oo wejigiisa garanayso qofka haddaad aqoon leh horey u taqaanay aad garanayso qofkii oo meyd ah oo meesha yaalla ama dhaawac ah taasna waxa weeye waa ka baxsan tahay runtii waxaa anshaxa saxaafadda qof hadduu dhinto oo meyd yahay oo meel yaallo sabab aad sidii inaad teesar u goynayso kale aad wejigiisao dhan muujiso iyo sidii dhaawac u gaaray aad muujiso qaar laga argagaxayaa ku jiray marka looma baahna dad inay dhinteen idaacadda waad ka sheegi kartaa laakiin muuqaalkoodii oo aad ugu dhowdaha kaamirada focused ah inaad samayso waa laga qurxoon yahay hadday dantu kalifto meel ka fog adoo taagan sawir muujinaya qof halkaa yaallo kale waa laga yaabaa inaad muujin karto ama madaxiisa iyo dhaawaca aad qarinayso laakiin aad ama lugaha ama wax uun aad ka sawirayso laakiin focuskaas masawirka la gelinayo meydka ah wax wanaagsan maaha dhaawaca sidoo kale waxaan wariyaasha weydiiyaa haddii wariye maaragtay camera sita iyo midkii wariyihii hadlayay labadooda mid dhaawacmo kan kale shaqada ugu horreysa u qaban lahaa maaha inuu kamerada ku soo rogo qofkaas waa inuu qofkan horta gargaar u fidiyaa dad la sidaad arkaysa laba ruux sido oo ay qofkii ku culus yahay oo sawir laga qaadanayo qofkaa sawir ka qaadaya waxa la qaatay inuu la qaado dhaawaca dad baa dhaawacmay waad dhihi kartaa maxaa xikmadda ku jirta ay tahay qofkan dhaawaciisa inaad muujiso marka inahaasna waa ka mid waxyaabahan ka hadlayo siyaabaha ay tahay in looga hortagana waxaa ka mid a in booliisku marka horeba meesha operationku ka socdo oo xabaddu ka dhacayso oo dhaawac yaallo oo meydku yaallo oo ayagu operationkoodii ka muuqdo in ay u oggolaadaan wariyaashu dhex galaan ma aha iyo cid kale toona qofkii operationka ku shaqale oo ama dagaalamaya ama dhaawac qaadaya ama daaweynaya inuu galay tahay meeshaas oo kale meel camera marka xilligaas lala galo kuma haboono yuusuf waxaa laleeyahay dadka sawiradaas qaaday inta badan warbaahintu ma aan ahayn laakiin dad caadiya ayaa sawirada qaaday oo sidaa ku bixiyey dabadeedna warbaahinta waxaa laga yaabaa qaarkood inay daabaceen marka arrintaas sidee saameyn ugu yeelan kartaa ama warbaahinta loogu eedeyn karaa websiteku inuu ka qaata maaha qof facebookiisa soo geliyay qof dhaawaca ama qof dhintay midda laakiin ku saabsan dadka iska raydka ahoo wax sawira oo lacalla ay dhacdo booliiskii inuu ka celin waayey ama arki waayey taas waa dhibaatada saxaafadda bulshada facebook qofka samaysanaya xeer saxaafadeedna ma yaqaano xeer websitena ma yaqaan hadduu rabana waa yaqaan laakiin isagu suu rabo u isticmaalaya arrintaas marka iyagana waxa weeye inay dadka websiteyada isticmaala marka ay war dhaba ka hadlayaan oo dagaalo dhacaya arrimahaas dadka facebooka isticmaalaya saxaafadda bulshada waxaa wanaagsan in ay taxadarkooda sameeyaan oo ay khibraddeeda raadiyaan masawirada noocaasna aanay isticmaalin waana sababahaan usoo qoray oo aan facebook iyo usoo geliyay twitter iyo bloggayga iyo google plus in bal dadka ay wada gaarto oo ay ogaadaan inaysan habboonayn in qof meydaho meel yaalla inta la sawiro markiiba facebook lasoo dhigo arrinta kale oo ku jirta dhankaasna waxa weeye in qofkii loo baahan yahay ehelkiisa horta inuu ogaado ma jeclid walaalkaah oo geeriyooday ilaahay kuguma keeno ee xabad ku geeriyooday in aad marka ugu horreysaba ka aragto facebooka adoon ogeynba qofka inuu dhintay marka taasina waa meesheeda ku jirta warbaahintu dabcan haddii aan soo qaadano arrinta maka almukarama uma lahayn inay galaan awood badan waxaana dhacaysa dhanka dowladda wax macluumaada oo ka soo baxaya ama warbaahinta la xiriira ma jirin arrintaas laftirkeeda miyaanay warbaahinta wax badan oo qaladaada inay samayso xog badan inay raadiso sida warbixintaada ka muuqata laftirkeeda aysan keeni karin waa sida uu sheegtay warbixinteeda lafteeda waa ku taabtay arrintaas marka operation noocaas uu socdo weliba kii hotel maka howlgalkiisa saacado fara badan ayuu socday dagaalkaas marka waxaa habboon in saxaafadda loo warramo dowladda xaq ayaa loogu leeyahay inay wariyaasha wargeliso si ay shacabka u wargeliyaan maxaa meesha ka socda maxaa la sheegi karaa ilaa haddeer si ay warka u kala beeqaaminayaan ayagaa og laakiin waa in meel warka loo soo doontaa ay jirto oo warbixin saacadba saacad ah ama xilligii wax soo kordhaanba bixinaysa marka taasna waa mid wasaaradda warfaafinta iyo booliiska looga baahan yahay iyo wasaaradda amniga
in ay iska kaashadaan oo ay diyaariyaan marka obereshanada noocaasa socdaan meel ay wariyaashu warka ka qaadan karaan. haddii kale waxay kalifaysaa in wariyuhu war la-aan ma ahaan karo iyadoo dagaal socdo magaalada dhexdeedii, in warar aan lagu kalsoonayn iyo warar maaragtay ku yiri ku yeen meelahaas ah uu iska qaato ayaa imaan karta.